kulan wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato subscribe saar oo fura gambaleelka si aad u hesho muuqaalada aan soo dhigno barteena YouTube-ka waxaan xog cusub idinkaga hayaa xaaladda uu ku sugan yahay Kim Joung-Un oo maalmihii la soo dhaafay warar kala duwan ay ka soo baxayeen xaaladiisa caafimaad Kim Joung-Un ayaa dib fagaaraha uga soo muuqday markii ugu horeysay muddo 20 maalmood ah kadib sida ay soo tabisay warbaahinta qaranka Kuuriyada Waqooyi wakaalada wararka ee KCNA ayaa sheegaysa in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu xariga ka jaray warshada samaysa qalabka bacriminta ee beeraha wararku waxa ay intaasi ku darayaan in dadkii ku sugnaa warshada ay aad u farxeen markii ay arkeen hogaamiyahooda Kim Joung-Un ka soo muuqashadiisan fagaaraha ayaa tii ugu horeysay tan iyo 12 Abriil waxayna taasi sababtay in caalamka la isla dhexmaro warar ku saabsanaa in xaaladiisa caafimaad aysan wanaagsanayn maxaa keenay in la isla dhexmaro xaaladda caafimaad Kim Joung-Un wararka la isla dhexmarayay ee ku saabsan Kim ayaa soo baxay markii sida la sheegay uu ka baaqsaday ka qaybgalka munaasabad sanad walba lagu maamuuso sanad guuridii ka soo wareegatay dhalashada awowgii oo ku beegneed 15 bishii Abriil Kim Joung-Un weligiisa kama uusan baaqanin munaasabadda xuska awowgiisa wayna iska muuqatay inuusan si sahlan u go'aansan karin inuu ka qaybgali waayo Kuuriyada Waqooyi oo ah dal ay adag tahay in laga helo xog ku saabsan madaxda sare ee dalkaasi ayaa waxa adkaatay in la xaqiijiyo xaaladda caafimaad ee Kim waxaana sidoo kale maalmihii la soo dhaafay soo baxayay warar kale oo sheegaya in hogaamiyaha dalkaasi uu galay qalin dhanka wadnaha waxaa sidoo kale soo baxay warar kale oo sheegaya in Kim Joung-Un uu nool yahay horey ma u dhacday in Kim Joung-Un la waayo sanadkii 2014 ayaa Kim la waayay muddo 40 cisho ah waxayna taasi keentay in wax la iska weydiiyo halka uu ku sugan yahay sidoo kale xilligaasi waxa soo baxay warar kale oo sheegayay in la afgambiyay dalkaasi hayeeshee maalmo kadib waxa uu ka soo muuqday warbaahinta dalkaasi haddii ay dhacdo in uu meesha ka baxo Kim yaa bedelaya haddii ay dhacdo in Kim uu meesha ka baxo sida ay doontaba ha ahaatee ma cadda cid bedeli doonta Kim waxa uu xilkaasi ka dhaxlay aabihiisa oo sanado badan hogaaminayay dalkaasi Kuuriyada Waqooyi waxaana muuqata in dhaxalka dhanka xukunka ee dalkaasi uu yahay mid uusan cid kale damac ka gali karin gabar ay walaalo yihiin Kim Joung-Un oo lagu magacaabo Kim Yo-jong ayaa u muuqata qofka iska leh dhaxalka dalkaasi maadaama ay walaalo yihiin Kim aadna ay ugu dhowdahay walaalkeeda waxaa sidoo kale la sheegayaa in ay saameyn ku leedahay xukunka dalkaasi taliska dalkaasi ayaa ah mid aad looga baqo halka shacabkuna ay dunida inteeda kale ka xirxiran yihiin taasoo yareynaysa wararka laga heli karo gudaha dalkaasi daawada haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo fur gambaleelka si aad u hesho muuqaalada aan soo dhigno barteena YouTube-ka